الله أكبر عدكين ولواه سيا الله أكبر إلهي باوين واحدة دمان waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta oo heer federaal iyo heer hirshabeelle odayaasha nabadoonnada ciidamada mujaahidiinta xaqdirka oo deegaanka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer qurac madoobe iyo reer mahday iyo ereyadan dadka deegaankan oo mujaahidiinta oo meeshan galabta jooga waa ku faraxsanahay aragtidiina waa aragti guuleed weey waa anu marka xaq ka soo degay aan arkay intaano meesha ku fayshan deegaankan inuu guuleysanayo waa ay sawiranta waa inuu kaga mahad celinayaa inaad dareen wadaniyadeed iyo mid deegaan iyo mid diineed baad meeshan ku taagan tihiin kuna difaacaysaan deegaanka yaa horta laga difaacayaa deegaanka maxaa loo dagaalamayaa waxa loo dagaalamayaa inagoo xor ah adigoo xor ah deegaankaaga inaad ku noolaatid ilaahay ku caabudid cidna aad ka cabsan xukunkiisa iyo maamulkiisana aad u gacantaada ku jiro cidda u dhiibanaysa ay noqoto cid aad ugu raalli ka tahay inta loo dagaalamayaa waa inta ilmahaaga gabadhaada iyo wiilkaaguna inaysan aan xoog lagaaga kaxaysan cabsina ku noolaan xoolahaaga dhaqatid beerahaaga falatid ganacsigaaga samaysatid adigoon cidna ka cabsanayn wixii aan dawlad ahayn xukun dawladeed ahayn oo dadka Soomaaliyeed leeyahay ha ogolaanina inuu meeshina ka shaqeeyo waa huba inayna ogolaanin waana mid roobkan u taagan tihiin iyo qorraxda waa inuu ku bogaadinaynaa waa inuu ku garab istaagaynaa laba waxyaalood waa inay ballan qaadaynaa qoriga wixii lagu shubi lahaa iyo qofkii dhaawacmo isbitaal la geeyo oo la qaado oo diyaarad lagu soo diro iyo wixii maalmaha dagaalka la isticmaali lahaa oo raashinaha raashinka qalalan inta ciidanka xooga qaadanahay wasiirkii maaliyadda Hirshabeelle jooga waa nasiib badantiin idinka lacagta tafiisay ka daaysaa marka walaalayaal nimankan waa ogtiinoo 8 bilood ka hor qiyaastii baa dhulkan laga saaray dad badan oo mujaahidiinana waa ku shahiideen naacaw iyo xurriyad iyo horumar baa deegaanku dareemay intay ka maqnaayeen hadda waxaan isleeyahay ayaantan xoogaa baa la jiiftay xoogaa baa meeshan ka soo gudbay webiga ka sokaysa intaas marka webiga ka soo gudubtay idinka la inii daynayaa ina qaniimaysataan hubka kala hartaan gacan saartaan ma ahan ina beebeey taangi wadatid bini aadanku wuxuu ka dagaalamaa qalbta iyo qalbiga wanaagsanaana waa haysan laba hadaa ku joogtaan oo labadu qoryo rasaas haysato meesha ku aragtaan xabad kaga rida haba sugunina meesha ku aragtid laba hal hadaa tahay meesha ku aragtid kula dagaalama meesha insha Allah waa 24 saac soo socota waa ku kala baxayna aag baa la insiinayaa aagin ina qaadataan bal rawaadi ilaahay waa huba ina qaadanaysaan waa huba ina tihiin dad dagaal hormuudka deegaanka inaad ka mid tihiin marka waa la in ka filaa booskaas ninkii dib u noqda adhowaad Soomaali waa sheekaysanaysa magac baa u baxay marka ragiina ka horeeyay oo yaashiinaha oo deegaamadan oo magac wanaagsan lahaa oo taariikhda ka tagay idinkuna taariikhdii ka taga ninina garanay wuxuu yahay geedka ku dhex jira hawdka oo xiran oo aan qofna la hadlayn qofna aan xurmaynayn qori madaxa kaaga haya laguma noolaan karo bilaadan kuma noolaan karo madaxan ka goynaya hadaad warkayga maqal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa meesha webiga jiinkiisa oo hadda ay joogan halkaas in ciyaartii lagu hadii la kureen lagu tumo maalmaha soo socda idinkoo qayb libaax la qaatay kaalintiinu caddahay aysan mugdi ku jirin aad iyo aad u mahadsantihiin Soomaaliya ha israacdo
soomaaliya ha midowdo reer qurac madoobe ha guulaysteen guul baan idinka filaynaa waxaan idinka filaynaa inaan maqalno xabadda sharqanteeda meesha ka socota aan dhaanay reer qurac madoobe aagaasay furteen intaasoo gaari intaas bay furteen intaasoo qori bay furteen taasaa haddii alla idma lagu wada sheekaysana واجب aad iyo aad aa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته